Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada asxaabta. Waxaan rajeynayaa in caafimaad qabtaan dhammaantiin. Maanta cashirkeen waxa uu ku saabsan yahay barashada shaybiska iyo sida loo isticmaalo. Cashirka ka horreeya wuxuu ahaa tooliska iyo qaybaha ugu muhiimsan ee loo isticmaalo. Maanta cashirkeen wuxuu ku saabsan yahay barashada shaybiska iyo sida loo isticmaalo. Haddii aad barato tooliska, waxa kaa caawinaya tooliska inaad sameyso design walba meel ku aragto. cidna adigoo u baahan inaad sameyn karta haddii aad barato tooliska iyo sida loo isticmaalo. Shaybiskana waa sidoo kale. Maanta waxaan rabnaa inaan barno qaabka loo isticmaalo shaybiska. Haddii aan Photoshop saan usoo dhex galno, qaybtan waxaa la yiraahdaa toolbar oo horaan usoo aragnay. Toolbar waxaa ka mid ah qayb la yiraahdo shaybis. Shaybiska haddii aan saan u aragno right click haddii aan dhahno, intaanu ka kooban yahay waa rectangle-kii, ellipse-kii, iyo triangle-kii, polygonal tool-kii, lines-kii, iyo custom shape tool oo ah qayb kale oo aad soo gashanayso qaybtan waa. Haddii aan ka bilaabno midkan ugu horeeyo rectangle-ka asiga maxaa ka sii sameyn kartaa qaybo badan. Annaga waxaan rabaa marka qaybta ugu muhiimsan si inaan aragno. Rectangle markaas sidaan u sameyso oo sidaan ku noqdo, qaybtan oo maxaa taaban move tool ku qoran tahay. Hore usoo aragnay move tool wuxuu qabto. Move tool inta ku dhufan goor meeshaan waxaa ku dhufan color sida loogu bedelo. Qaybtan waxaa la yiraahdaa fill oo ah waa qaybta colorka oo loogu bedelayo shaybiska iyo ama wixii kale oo meesha ku yaalo projectiga. Qaybtan kalena waxaa la yiraahdaa stroke oo qaybta stroke loogu yeelay. Haddii aan ku laabno meesha fill-ka ama colorka, haddii aad colorka rabtaa saaran kartaa nooc walba. Colorka rabtaa saaran kartaa cagaar haddii aad saarno ama guduud, nooc walba nooc rabtaa. Haddii ay kuwan kugu yaraadaana waxaa inta meeshaan oo isha yarta ku dhufan. Marka ku dhufato halkaan aad soo gashan colorka rabta nooc walba halkaan kugu jiraan. Colorskan ayaguna waa muhiim, waa cashir gooni aan ku qaadan doonaa. Halkaan marka ku dhufato colorskan saas loo isticmaalaa. qaybtan haddii aad color rabin inaad color ka qaado, meeshaan ku qoran tahay no color halkaan ku dhufan oo calaamad guduud ah. Marka meesha saa ugu dhufato colorka lagaga qaadaya. Haddaan diyan ku soo ceshano, qaybta kalena waxaa la yiraahdaa gradient oo ah sidaan ku noqonaya meeshaan colorkaas oo yeelan doona. Haddii aan aragno qaybtan oo asagan stroke waxaa la yiraahdaa. haddii isla aragno wax yar aan ku daran doonaa qaybta lagu kordhiyay qaybtaas waaye. Stroke waxaa la yiraahdaa qaybtan u koreyso oo khafiifka ah, qaybtan ku wareegsan oo jaalaha number yahay. qaybtaas la yiraahdaa stroke oo qofkaan aqoonin. Stroke saas la yiraahdaa. haddii aad inaad ku darsato meeshaas ka maamulin inta rabto. haddii aad asagan inaad color ka bedesho, colorka rabtaa saaran kartaa nooc walba. haddii aad u rabin color halkaas ku dhufan oo color uma raba leedahay. haddii halkaas ugu soo gudubno qaybtan oo imaadno meeshaan oo ishaan haddii aad qabato sidaan soo dhahdo oo u soo laabanayo oo afarta gees baa laga soo laabaya. haddii aan meeshaas ku celino lacag haddii aad rabto qayb ka mid ah inaad soo laabto, meeshaan halkaan jagta ku saaran, meeshaas ka qaada jagta. markaas saan linkiga ugu furto qaybta rabta ka laabi kartaa. haddii halkaas saan u soo laabno sidaas noo noqonaya. haddii aad rabtana qaybtan kale ku dartana saas la leedahay oo sidaas loo isticmaalaa. qaybtan kale haddii aan ku darno oo sidaas noo noqonaya. wada shape sida camal noo sameysmay. haddii aad rabtana shape nooc aragta ka sameyn kartaa. haddii aan saa camal dhahno oo qaybtan saan dhahno noocan u sameysmay. haddii aan saa camal ka soo dhigno isagana noocan saan noo noqday. shaybiskan rectangle-kan sidaas loo isticmaalaa oo qaybo badan oo soo isticmaali kartaa. annaga hadda qaybta ugu muhiimsan bisa aragnay. haddii aan halkaas ugu soo gudubno right click leenahay. qaybtan oo maxaa ellipse tool-ka halkaan daawo sii gudubno. ellipse asagana waa sawirayna halkaan markaas aan u dhigno. qaybtan haddii aan u tagno asagan colorka waa isla aragnay. haddii aad rabtana colorka bedesho halkaas leedahay. haddii aad rabtana stroke u yeelatana qaybtan oo halkaas ku dhufan colorka rabtaa ku shubani, cabirka rabtana u yeeli kartaa. haddii aan colorkan saan ugu qaadno oo halkaan jagta saarno, haddii aad rabtana kan copy gareyso ama laba xabo ka dhigto, laba qaab oo la isticmaalaa jirto.
qaybta koowaad maxaa waaye inaad dhahdo control e j inaad isla qabato ma arki doonto sababtoo inaad soo jiido movie oo sidaan soo dhahdo movie ma arkaysid ilaa halkan aad ka aragto movie. saas markaad dhahdo laba xabo noo noqday. qayb kalena waxaa jirta oo loo isticmaalo inaad saan dhahdo alt aad la qabato. alt markaad saan usoo jiido waa qabani asagaan dooranayna first markaad saan u doorano kabacdina alt aan qabanayna kabacdina saan usoo jiidina oo qaabkaasna koobi loo baxsadaa oo alt inaad la qabato. haddii aan saas la aragnay kabacdina qaybtan kore iska tuurno. haddii aan ku noqono meeshaan qaybtan kalarkiisa noo soo ilaalinaynay qaybtan kalena oo properties asagan kalarka laga saartaa marna leen stroke. haddii aan kan dhexda ku aadisano saa haddii ayaan qayb waxaa jirta haddana haddii aan control e t isla taabano oo aan right keliga haddii aan dhahno qaybtan qayb waab la yiraahdaa jirto oo ah oo sidaan ku yeelayaa. qayb kalena waxaa jirta la isticmaalo haddii aan control e t dhahno saa markaan dhahno right keliga adigoo dhihin qaybtan adida tegi meeshaan ku qoran tahay transform path halkan laga soo saartaa oo kana halkan waabay ku qoran tahay. haddii aan rabina meeshaan ku saaran tahay halkaas ha checklist siini qayb muhiimada aan jarno balkan oo qayb aan ka soo qolcino. qaybtan sidaas loo isticmaalaa asagana oo waxaa leedahay shaybiska diyaartir libsigiina diyaartina qayb oo ka qalloociso saan loo isticmaalaa oo shaybiskan quruxda badan hadda noo soo baxay. kuwa ka qurxan oo ku sii sameyn kartaa oo shaybiska qalloocana meelaha ku aragtay dhanba saan loo isticmaalaa. shaybiska dhammaan oo noocyahan oo eega ku aragtay dhanba sidaan loo sameeyaa. libsiga asagana sidaas loo isticmaalaa. qaybtan kale oo triangle-ka haddii aan tagnano triangle-ka asagana waa sidii kuwii hore oo kale. haddii aad rabto asagana inaad soo laabto saasaa dhihi kartaa ama qaybtan kale oo geeska meeshaan ku qoran tahay properties aad tagaysaa meeshaan ka laaban kartaa oo halkaas u jiido intaa rabto. haddii aan rabno stroke yeelana stroke haddii aan rabno u yeelana saana leenahay qaybtaas tagay qaybtana kordhin marka intaa rabto stroke saa ku yeelaya. isagana sidaas loo isticmaalaa oo ah midka triangle-ka waaye. haddii aan tagnana qaybtan ay ku qoran tahay polygonal tool-kan ay ku qoran tahay. haddii aan tagno isagana haddii aan sidaan dhahno soo yar weynaysano haddii aan sidaan u tagno isagana saana u soo laaban karnaa meeshiisana ku celin karnaa. haddii aan rabno intaan laga maamulaa qaybtan properties ku qoranta tagi haddii aan rabno soo laabno intaas sidaa ka dhigin kartaa 32 camal hadaa ka dhigno hadda ilaa 100 ka dhigin kartaa haddii aad rabto. asagana waxaa jirta qayb kale oo tirig ah meeshaan kale haddii aan isticmaalno meeshaan haddii aan sidaan dhahno waxaa u isticmaali kartaa qaab xidig ahaan aad u isticmaali kartaa oo haddii aan ka dhigno meeshaan 5 haddii aan ka dhigno xidigu noo noqonayaa oo kalarka aragta siisan kartaa xidigu noo noqday haddii rabto ka sii badan kartaa saasaa leedahay oo sidaana leedahay. qaybtan ayadana sidaana loo isticmaalaa polygonal tool-kan sidaas loo isticmaalaa asagana. haddii aan tagno qaybtan kale right keliga haddii aan dhahno lineska asagana waa qaybta ugu muhiimsan oo kale. haddii aan dhahno saan oo kale meesha rabta dhihin kartaa kalarka haddii aan dhahno noocaan noo sii isla noocaan sii oo aan ku darno xoogaa yar kordhino asagana sidaan waa asagana lineska oo waxyaalo badan loo isticmaalaa jiro saana leedahay. haddii aad rabto inaad koobi ka baxsato right keliga leedahay soo jiido lines asagana qaybtan waayo oo sidaan u egyahay signskan uu tagi doonaa asagana. haddii aan tag right keliga dhahno oo qaybtan custom shapes haddii aan tagno meeshaan haddii aan furno meeshaan qaybo badan ay kooban tahay animalska keeli betis oo waxyaalaha oo badig oo ku saabsan sida doominki waxyaalahaas keeli trees keeli leaves caleemaha geedaha keeli kala wax walba haddii aan tagno qaybtan flower-ka wax walba keelaysa meeshaan ayadana qaybtan flower-ka haddii aan tagno hadda oo kan oo kale ku dhufano haddii aan sidaan usoo gashano haddii aan sidaan usoo jiidano oo soo gashano geedka wuxuu ku fiican yahay
cagaar oo kale haddii aan ka dhigno sidaan nano saan u egyahay. haddii aan ku noqono haddan oo soo qaadano qaybtan iska xirno oo aan tagno qaybtan duumanta oo hal xabaan soo qaadano si aan markaa dhahno asagana sidaan u egtahay qaybta saana loo isticmaalaa sidaan waa isagana anyway wax walba ku samaysan kartaa oo u baahan tahay wax walba oo rabtaa ku samaysan kartaa. qaybtan custom shapeskan sidaas loo isticmaalaa oo wax walba qayb walba oo kamid ah waa furaysaa wax horta ka soo qaadan kartaa oo ah ama xayawaan ahaada geed anyway wax walba u baahan tahay ka heli kartaa meeshaan sida xayawaanada kale wax walba u baahan tahay ka heli kartaa. cashirkeena maanta waxa uu ku saabsanaa sida loo isticmaalo shapeska waxaana u maleynayaa inaad fahanteen oo soo practice garan doontaan intaan cashirkan cashir lamid ku kulmi doono. waxaan idinka tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.